adduunka waxa loo qadimay qoftinimada iyo xooqood looga dhigay qoftinimada iyo xooqood ma looga dhigay adduunka waxa loo qadimay
sare aan la quuri karin qalanjada yaxub ma wax laga qaba ma wax laga qaba qalanjada yaxub ma wax laga qaba Mahabale, Kotalola, Sare, and the Puri Karin. Karanchada, Yahoo, Mohaga, Mohaga, Karanchada, Yahoo, Mohaga, Mahabale, Kotalola, Sare, and the Puri Karin. Karanchada, Yahoo, Mohaga, Mohaga, Karanchada, Yahoo, Mohaga, كيتسو برسلانتayga qaad taa qaadaya kaydso aryaadsan oo kala ark ana arkay kaydso oo maxaan kaydsadaa hantidaada kaydso taas ma dhacayso sabab markaan xig kaydsadaba dib baan u isticmaalaa waa sababta aan kuu idhi kaydso maba kaydin karee waa kaydsan kartaa haddii aad isticmaasho adeega kaydso adeega kaydsa ah ha waa adeeg kuu sahlaya inaad lacagtaada ku kaydsato simkaarkaaga somtel adigoo isticmaalaya adeega iidaab gartay macaamil lacagtaada waxa aad si toos ah ugu kaydsanaysaa adeega mobile moneyga somtel ee iidaab waayahay si aad u kaydsato hantidaada waxaa lagama maarmaan ah inaad xulato aminta kaydsashada sidee dooro aminkeedsiga aad rabto tusaale waxa aad kaydsan kartaa 3 xilli oo kala ah 3 bilood 6 bilood iyo 12 bilood war fiican saasaad ku kaydsatay horta ii kaadi haye goormaan kala bixi karaa adeega kaydso hantidaan ku kaydsaday marka ay ku dhamaato muddada aad dooratay in aad ku kaydsato beelo adeega kaydso waxaad u isticmaali kartaa saving account ahaan oo waxa aad ku kaydsan kartaa dhigaarkaaga maaliyadeed ee kuu gaarka ah waa si fiican haddaba si aad u furato adeegaaga kaydso fadlan garaac xidig 232 afar gees kadibna dooro nambarka koowaad walee waa nafsadaada ayuu talagal oo lacagtaada ku kaydso bangiga caalamiga ah ee daabshi haye cali kaydso waan ku salaamay kaydso barslaantayga qaad taa qaadaya kaydso aryaadsan oo kala ark ana arkay kaydso oo maxaan kaydsadaa hantidaada kaydso taas ma dhacayso sabab markaan xig kaydsadaba dib baan u isticmaalaa waa sababta aan kuu idhi kaydso maba kaydin karee waa kaydsan kartaa haddii aad isticmaasho adeega kaydso adeega kaydsa ah ha waa adeeg kuu sahlaya inaad lacagtaada ku kaydsato simkaarkaaga somtel adigoo isticmaalaya adeega iidaab gartay macaamil lacagtaada waxa aad si toos ah ugu kaydsanaysaa adeega mobile moneyga somtel ee iidaab waayahay si aad u kaydsato hantidaada waxaa lagama maarmaan ah inaad xulato aminta kaydsashada sidee dooro aminkeedsiga aad rabto tusaale waxa aad kaydsan kartaa 3 xilli oo kala ah 3 bilood 6 bilood iyo 12 bilood war fiican saasaad ku kaydsatay horta ii kaadi haye goormaan kala bixi karaa adeega kaydso hantidaan ku kaydsaday marka ay ku dhamaato muddada aad dooratay in aad ku kaydsato beelo adeega kaydso waxaad u isticmaali kartaa saving account ahaan oo waxa aad ku kaydsan kartaa dhigaarkaaga maaliyadeed ee kuu gaarka ah waa si fiican haddaba si aad u furato adeegaaga kaydso fadlan garaac xidig 232 afar gees kadibna dooro nambarka koowaad walee waa nafsadaada ayuu talagal oo lacagtaada ku kaydso bangiga caalamiga ah ee daabshi haye cali kaydso waan ku salaamay kaydso barslaantayga qaad taa qaadaya kaydso aryaadsan oo kala ark ana arkay kaydso oo maxaan kaydsadaa hantidaada kaydso taas ma dhacayso sabab markaan xig kaydsadaba dib baan u isticmaalaa waa sababta aan kuu idhi kaydso maba kaydin karee waa kaydsan kartaa haddii aad isticmaasho adeega kaydso adeega kaydsa ah ha waa adeeg kuu sahlaya inaad lacagtaada ku kaydsato simkaarkaaga somtel adigoo isticmaalaya adeega iidaab gartay macaamil lacagtaada waxa aad si toos ah ugu kaydsanaysaa adeega mobile moneyga somtel ee iidaab waayahay si aad u kaydsato hantidaada waxaa lagama maarmaan ah inaad xulato aminta kaydsashada sidee dooro aminkeedsiga aad rabto tusaale waxa aad kaydsan kartaa 3 xilli oo kala ah 3 bilood 6 bilood iyo 12 bilood war fiican saasaad ku kaydsatay horta ii kaadi haye goormaan kala bixi karaa adeega kaydso
isticmaal adeegyada Somtel ku hadal internet iyo adeega mobile money Somtel ee idahab si aad uga mid noqoto guulaystayaasha oo guulayso 10 kugu talagashay shirkadda isgaarsiinta Somtel ku shubo kaarka hadalka ama u isticmaal data internet ahaan si aad ugu guulaysato hadiyadaha soo socda gaari Hyundai oo 0 kilomitir ah bajaaj laptop iyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدنيال إمروين مسؤولين تكلا جديسان نجلا سوق قشي مناسبة آتك وقروح ذا بدن مناسبة كشوب أو جوليسو تضبط كي طبنات الله هنتا بقالك وانسود ويننا مسؤولين تكلا جديسان أو جوهريو حلباني درس عبدي دكتا أو صاشر في مناسبة هنا waxaan leenahay xildhibaan aad iyo aad u mahadsan tahay dhammaan mas'uuliyiinta kala gedisan kuwa ka socda gobolka Banaadir ururada dhalinyarada ururada haweenka bahda warfidiyeenka mas'uuliyiinta shirkadda isgaarsiinta Somtel oo ugu horeeyo madaxa waaxda ganacsiga shirkadda isgaarsiinta Somtel mudane Cabdullaahi Cali Caamir sidoo kale waxaan meesha ka marnayn oo munaasabada nagula sugan madaxa xafiiska suuqgeynta shirkadda mudane Axmed Ciise Xaaji sidoo kale mas'uuliyiinta kala gedisan ee munaasabadeena soo sharaftay qof waliba oo magac iyo meeqaam huban waxaan idinku salaameynaa meeqaamka iyo mansabka aad ku fadhisaan waa maalinimo jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay 24 bisha 9aad sanadu waa 2021 waxaynu ku guda jirnaa ololaheeni ku shubo oo guulayso oo aynu hore u daahfurnay bishii 7deedii 2021 iyadoo toddobaadkan uu noqonayo toddobaadkii 10aad sidoo kale hore waxaan u bixinay gaarigii koowaad bishii Agoosto 28keedii waxaanu bixinaynaa toddobaadkayna soo aadan hadduu eebaha awoodda sare leh ogolaado 1da bisha Oktoobar gaarigii labaad macaamiilka ku guulaystayna waad arki doontaan insha Allah taala marka aan generate gareyno waa idin soo wada dhaweynayaa waxaan ka codsanayaa macaamiisheena sharafta leh inay ka faa'iideystaan ololahan taabagalka ugu horeyntii intaynan gudagelin munaasabadan waxaan jecelahay inaynu ku dahrogano aayadaha quraanka kariimka oo wax lagu furfurto waxa ugu qiimaha iyo qaayaha badan waxaan halkan uga yeerayaa si uu noogu aqriyo aayadaha quraanka kariimka walaalkeen mahad cusubow soo dhawow samaad أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم وياهي aad iyo aad ayuu mahadsan yahay walaalkeen mahad cusubow oo aayadaha quraanka kariimka inoogu daafurayay ilaahay naga yeelo kuwii ku camal fala macaanida ay xambaarsan yihiin aayadaha quraanka kariimka alladina yastamicuuna alqawla fayattabicuuna ahsanah ololahan ku shubo oo guulayso waa ololo taabagal ah guud ahaanna ka dhaqan galay gobolada ay ka howlgasho shirkadda isgaarsiinta Somtel waan hambalyeynaa macaamiisha kala gedisan ee ku guulaysatay tan iyo markaynu ololaha xariga ka jarnay toddobaadkii koowaad 7 bisha July 2021 ilaa iminka waxaa lagu guulaystay hadiyado aad u fara badan bajaajo ku dhow 20 meeyo firinjeero qasaalado laptopyo Samsung screens lacagaha mobile money oo telefoonada loogu kala dirayay macaamiisha iPadyo tabletyo sidoo kale waxaa qayb ka ah gaarigii Hyundai-ga oo aan ku abaalmarinay maamo Madiina Xuseen Yaxye oo ku nool miyiga gobolka Hiiraan 28kii bishii aynu kasoo gudubnay ee Agoosto waan hambalyeynaya insha Allah taala iyadoo wiiga
inagu soo aadan insha allah la abaalmarin doono macaamiilkii labaad ee ku guuleystay bishii labaad gaariga Hyundai-ga waan arki doonaa cidda ay noqonayso dhammaanteen waan is wada weydiinaynaa gobolada uu ololahan sida saxda uga taabagalay waa gobolada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya gobolka Mudug Galgaduud Hiiraan Shabeellaha Dhexe Shabeellada Hoose gobolka Jubbada Hoose gobolka Jubbada Dhexe gobolka Gado Baay iyo Bakool iyo gobolka Banaadir 17kiisa degmo guud ahaan macaamiisheena ku dhaqan iyo magaalaba way ka wada faa'iideysteen waa hambalyeynayna cid waliba oo guuleysatay ilaa iminka kuwa guuleysan doona insha Allah ololaha inta ka harsayna waa soo dhaweynaynaa waxaan jecelahay daafurka iyo xarig jarka munaasabada inaan ku soo dhaweeyo madaxa xafiiska suuqgeynta shirkadda isgaarsiinta Somtel mudane Axmed Ciise Xaaji soo dhawo boss صعبكي سولو بنتنا وحقينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله وثناء لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد dhammaan akhyaarta sharafta leh ee soo ajiibtay martiqaadkeena barnaamijka ku shubo oo guuleyso meel walba ay joogaan ama ha fadhiyaan goobtan quruxda badan ee beerta nabadda noo diyaarisay ama online-ka ha nagala socdaan waxaan leeyahay mar labaad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib sharaf ayay noo tahay inaad maanta qabanno barnaamijka ku shubo guuleyso usbuucii 10aad oo si habsami leh noogu socda اسبوع walbana lagu abaalmariyo macaamiisheena isku dayday barnaamijkan ama inay ka qayb qaadato oo ah barnaamij ku shubashada qof kasta oo isbuuca ku shubta lagu abaalmarinayo waxaan farxad ah in dadka macaamiisha shirkadda Somtel ay wada fahmeen barnaamijka nooca uu yahay inay tahay ay ku xiran tahay ku shubashada kaliya ama internet ku shubo ama ku hadal ku shubo oo aad markaas isbuucaas dhexdiisa aad ku shubatid aad ku guuleysan kartid ama aad fursad u helaysid inaad heshid hadiyooyin kala duwan mar walba aad ku shubatid ama abadisid ku shubashadaada waxa u dhawaanaysaa ama aad heli kartaa fursadaada ay ka horeysaa qofka hal mar ku shubta marka ku shubashada mar walba abadisid waxa waaye waa mar walba u dhawaatid guuleysashada su'aashaas mar walbana noo soo laabataa laakiin macaamiisha hadda si fiican way fahmeen waxaa bogaadinayaa gobolada ay ku wada ka guuleysteen agabyada kala duwan bajaajyada oo shaqo abuur magaalada u ah baabuurkii Hyundai-ga ahaa qasaaladaha finjeerada laptopyada ardada sida ogtiin hadda bishan waxaa la wada furay jaamacadaha dalka waxaa haysataan ardada jaamacadda hadda fariin u diro waxaa haysataan fursad ay shirkadda Somtel kaaga dhiibi karto waxbarashadaada oo dhan waxaana waaye barnaamijkan ku shubo oo guuleyso wuxuu leeyahay qayb scholarship ah oo haddii aad ku shubatid aad ku guuleysan kartid scholarship semester ama 2 semester ah marka ardayda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan oo Soda Central fadhiya waxa ugu baaqaya ayaga laftigooda in barnaamijkan ay qayb ka soo noqdaan si ay ugu guuleystaan scholarship-kaas sidoo kale barnaamijka saa sheegnay insha Allah bisha isbuuca soo socdo ama jimcaha oo ku aadan kooda bisha waxaa lagu guuleysan doonaa hadda ma ogin in lagu guuleysan qof ku guuleysan doono iyo gobol ku guuleysan doono ma ogin laakiin isbuuca soo socdo waxaan generate garan doonaa oo soo bandhigi doonaa jimcaha soo socdo hadduu alla idmo guuleystaha labaad ee baabuurka Hyundai-ga ah nooca baabuurka waliba noocyada aadka dadka ay rabaan oo nooca shaqada ah marka barnaamijkaas isbuuca soo socdo waxaan hoosta ka xariiqaynaa qof walba iyo gobol walba uu joogo inuu attentionkiisa iyo tartankiisa uu laba jibaaro si uu baabuurkaas ugu guuleysto anaga gobol kasta oo ku guuleysto waa noo gobolkeeni gobolkii hore baabuurkii hore waxaa ku guuleystay gobolka Hiiraan haddana waxaan jecelnahay insha Allah isbuuc soo socdo inay gobollo kale anagana aan ka dhex aragno waxaa mar walba tiro lahayn bajaajyada isbuuc walba lagu guuleysto isbuuc walba waxaa lagu guuleystaa 2 bajaaj marka farxad ayay noo tahay hadda shirkadda Somtel iyo Dahabshiil Group aan isbuuc walba dad badan oo shaqo la'aan ah aan shaqada ka saareen sidoo kale waxaa mar walba la dhiibaa waxyaalaha agabka guryaha wax ka tara sida firijyada qasaaladaha iyo cooking machines oo cuntada lagu karsado intaba waa waxyaalo wax tar leh oo guriga wax u tarayaan waxaa kaloo dhiibnaa dahab oo 10 gram ah qof kasta oo ku guuleysto marka hadiyadaha way badan yihiin
dhinacaaga ka mid noqo inaad ku guulaystid. waxaa kaliya macnaha ugu guulaysan kartaa inaad barnaamijka isbuucii ku shubashadaada aad ku dadaashid inaad ku shubatid. macaamiisha aan shirkadda Somtel hadda aan la joogin ayaga mar walba waxaa ugu baaqaynaa inay macnaha ay kusoo biiraan shirkadda Somtel si ay barnaamijkan uga qayb qaataan. isbuucii hore macaamiil waxaana la joogay waqti yar shirkadda Somtel la joogay haddana guulaystay. taasna waxay cadeynaysaa in macaamiisha qof walba ay arrinkan u furan tahay nasiibkiisana ku xiran tahay insha Allah. marka macaamiisheena meel walba ay joogaan magaalada Muqdisho ama gobolada kale waxaan ugu baaqaynaa barnaamijka inuu haddana bil hor leh uu sii dhiman yahay. 2 bilood ayaa noo dhameystirmi doonta isbuuca soo socdo. baawurka markaa dhiibnana waxa isbuuca soo socdana waxaa noo sii dhinaan doonto 1 bil oo hor leh. marka waliba habeenkaama tagin wuu socdaa barnaamijkan waana ka qayb qaadan kartaa. waxaa mar walba dadka dhammaan macaamiisheena meel walba ay joogaan xasuusinaynaa jumcada soo socoto waa jumcihii baawurka Hyundai-ga ahaa loo tartamayay la generate gareenay. insha Allah nasiib wacan qof walba oo shacabkeena iyo macaamiisheena kamid ah waxaan u rajeynaynaa guul. barnaamijku wuu noo furan yahay. barnaamijku waa barnaamijka ku shubo oo guuleyso. waana ku faraxsanahay inaad nasoo ajiibtaan. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waayahay aad iyo aad uu mahadsan yahay ustaad axmed ciise xaaji madaxa suuqgeynta iyo xiriirka dadweynaha shirkadda isgaarsiinta Somtel. waan hambalyeynaya insha Allah bishaaradaas guddigeena aan ka wada faa'iideysano toddobaadka soo socdo aan u wada barantano ilaa ilbiriqsiga ugu dambeeya waad u tartami kartaa gaariga labaad ay shirkadda isgaarsiinta Somtel ay bixinayso. waa gaari Hyundai ah waliba nooca ganacsiga loogu talagalay. bulshada Soomaaliyeed inta badan way wada ganacsadaan waxaan rajeynayaa in laga wada faa'iideysan doono. marka aan u wada tartanno insha Allah ilaa daqiiqada ugu dambaysa aan aragno qofka ku guuleystay iyo gobolka uu joogo insha Allah. waxay naga xiga waa toddobaadkan. waxaan jecelahay iminka inaan Jaanis siiyo bahdii ciyaarta dhaantada. waxaan rajeynayaa inay soo dhawaadaan insha Allah tacaala. ciyaartii labaad ayaan fursad u siinaynaa. soo dhawaada leeyahay guddigeena aan la wada socono. mahadsanidin.
waayahay aad iyo aad ay u mahadsan yihiin bahda ciyaarta dhaqanka ee dhaantada waan u mahadcelinayaa dhalinta maasha allah ciyaar aad u qurux badan ayay soo bandhigeen waan uga mahadcelinaynaa waxaan leenahay insha allah halkiina inooga sii dara waayahay waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala inaan fursadda siina iminkana mas-uulka ugu sarreeya ee munaasabadeena soo sharfay oo aan uga mahadcelinayno golaha shacabkana isaga ayaa inoo matalaya waxaan jecelahay inaan soo dhaweeyo ila soo dhaweysaan stageka aan keenno mudane ka tirsan golaha shacabka waliba waa kuwooda ugu caansan ee bulshada Soomaaliyeed magaca iyo meeqaamka ku dhaxleh mudane Idris Cabdi Dhaqta xildhibaan waxaan leeyahay soo dhawow بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه runtii aad iyo aad aad u mahadsantihiin saad igu soo dhaweyseen dahabshiil iyo samtel runtii ceeb ma laha waxa waaye tusaale ahaan aniga waxa waaye macaamiishoodan ka mid ahay mustaqbalkan waxaan rabaa inaan ku guuleysto inkastoo aan raba haddaan ku guuleysto inaan ku caawiyo maxaa la lahaayay bulshada aadka u tabar yar siiba ani waxaan aad iyo aad u taakuleeyaa ardayda laba jaamacadood Baydhabo ka furay Abba Juba University iyo jaamacadda Khayre lacag la'aan lagu dhigtaa waxaan raadiyaa waxa dhibaatada hadda ugu badan Soomaaliya waxa waaye runtii arday kula soo hadlay wuxuu ku leeyahay waxaan rabaa waxa laga yaabaa maxaa la lahaayay inuu awoodin dhaqaale inuu jaamacaddaas waalida kula soo hadlay wuxuu ku leeyahay wiilasheedii iyo gabdhahayga waxa waaye waxaan u baahanahay inaad iga caawisid sidaa daraadeed hadda ka hor waxaan xasuusanahay iskuul ku yaala magaalada Baydhabo ayaa waxaa ka dhacday imtixaan la qaadayay arday laga reebay imtixaanka waxa la lahayd dhowr bilood lagu leeyahay maamulihiisa waxa u tagay hooyadii ayaa waxay tiri suuqan tagaya sariirihiisan soo gadaya sariirtu ku seexan lahaa waay intaas imtixaanka fadhiis maamulihii waa ka diin waxa igu kalifay inaan mar walba in ardayda wax la'aan la baro sababtaas ahayd aniga waxbarashadeedii dugsi hoose dhexe ilaa jaamacadda lacag la'aan aan ku soo dhigtay markaan aad iyo aad waxaan ka codsanayaa Samtel iyo Dahabshiil in ay runtii ay scholarship hadda ay ka dhawaajiyeen inay ka dhabeeyaan waxyaalaha problemka ugu daran waxa waaye in la caawiyo ardaydan hadda soo baxayso oo waxbarashadooda lagu caawiyo dad waxaa jira aan awoodin waxbarashada dugsi sare hadduu soo gaaro jaamacaddii ma awoodo runtii Dahabshiil ceeb ma leh aniga tusaale ahaan familka reer Cabdi Taqtar Allah 15 sim kaaran aan leenahay oo Samtel bishii haddii lagu dhufto waxa waaye maalintii $1 haddii la 450 waaye sanadkii 5,000 waaye anigana abaalmarinteyda waa sugaa insha Allah markaan باي بكون كل مشروع وحال إلى هذا وحيكون جرام محل كو جوليسان دونه
ceeb male hadalkayga waxaan kusoo koobaa hal ceeb ay leedahay waxaa waaye dhaantada maayo maxaa tiri ka dhiga annaga waalayaan leenahay kabiibayaan leenahay aad iyo aadna waa u mahadsantihiin hadalkayga intaas kusoo koobaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xildhibaan ha inaga tegin waxaan kaa codsanaynaa inaad inoo generate garayso halka aad aragto dadweynaha shaashadaas ay nagala socon doonaan adigana waxaan rabnaa insha allah inaad noo start garayso aadna stop garayso adaa gacantaada ku hagaaya oo markaa insha allahu tacaala inoo generate garaynaya hadiyadda ugu horeysa ee loo tartamayo waa maxay xildhibaan kulley waxaan u malaynaa wax ugu qaalisan hadda meesha yaalo baabuur waa waayahay aad iyo aad umahadsanta gaariga waa inoo yaalaa laakiin midda loo tartamayo waa gaadiidka bajaajka okay macaamiil aad u generate garaysay ayaa ku guuleysanaya inoo start gareen bismillah waayahay dadweynaha waxay nagala socon doonaan halkaa shaashada aad aragtaan waa hambalyeynaynaa dhammaan macaamiisheena kala gedisan xildhibaan idris waan arki doonaa macaamiilka ugu horeeya ee uu bajaajta u generate garaynayo talow baa iyo boqol muu noqon doonaa mise gobolada kale ee dalka koonfurta iyo bartamaha soomaaliya waa soo wada dhaweynaynaa insha allah macaamiisheena sharafta leh waxaan leenahay hambalyo waan arki doonaa bismillah waayahay lambarka ku guuleystay waa 62 5 15 38 29 waxaan rajeynaynaa insha allahu tacaala inaan jaanis u siino macaamiilka waan la xiriireynaa insha allahu tacaala oo aan qadka soo gelino si toosa insha allah hadiyada xigta aad inoo sii generate garaynayso waxay noqonaysaa dahab intaan macaamiilka ka helayno inoo sii generate garay xildhibaane bismillah waayahay waan arki doonaa waxaan u rajeynaa yaad u rajeynaysaa dahabka inuu ku guuleysto dad ka soo jeeda koonfur galbeed waayahay aad iyo aad u mahadsan yahay xildhibaanka maasha allah macaamiishan oo idila wada rajeynaynaa gaar ahaan rag iyo dumar yaa si gaar ugu rajeynaysaa dumarka waayahay xildhibaan aad iyo aad aa u mahadsan tahay dahabka habla unbaa ku guuleysta waa soo dhaweynaynaa ragguna way guuleysan karaan ilaan habluhu way la dhasheen way u dhaxeen maaragtay adeeray u yihiin abtiyaal waa soo wada dhaweynaynaa insha allahu tacaala weli waan la xiriiraynaa waxaan rajeynayaa waayahay macaamiilka ku guuleystay dahabka lambarkiisu waa 6204 10 eber 9 49 mar labaad inta aan nala joogin haddaan ugu celiyo waa 6204 10 eber 9 49 waxaan rajeynayaa axmed inuu la xiriirayo waan kasii faa'iideysanaynaa xildhibaane iminkana waxaa loo tartamayaa samson mobile noocii ugu dambeeyay shirkadda samson ay soo saarto qaybihii dambe sanadkan 2012 السلام عليكم ورحمة الله macaamiilka qadkeena ugu jira walaal waa shirkadda Samtel ayaa toos kula soo xiriiraysa gaar ahaan barnaamijka ku shub oo guuleyso waxaana ka mid tahay macaamiisha hadiyadaha leh magacaaga iyo meesha joogto magacayga Cabdiqafaar Aweys Maxamed intee joogtaa walaal Cabdiqafaar Cabdixamed Joola joogay jowhar akima dahabali waxaa ku guuleysatay 10 garan oo dahaba waxaan rajeynayaa insha Allah inaad macaamiishaada la wadaagi doonto هذا حرمت إن البكارة نوعي ما ندولا يرا حرمت ده الشركة دي. إن شاء الله بيا ما همبلي. waayahay guuleystihii labaad aan soo qabanay wuxuu noqday reer jowhar kan soo socda waxaa umalena reer xudur oo noqon doona allahu akbar waayahay xildhibaan inoo generate garay samson mobile ayaa loo baratamayaa waxaa barnaamijka martii inoogu ah nagala qaybgelaya xildhibaankeena sharafta leh mudane idris cabdi dhagta waan u mahadcelinaynaa guuleystii saddexaad ayaa loo baratamayaa insha allah samson mobile ayaa loo tartamayaa waan arki doonaa macaamiilka ku guuleysta talow ma gabarba ma wiilba waayahay xildhibaankeena aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay dabcan lambarka guuleystay waa 02 mar labaad haddaan ugu celino daawadayaasha waa 02 iminkana waxaa loo tartamayaa laptop waa hadiyad aada u qiimo badan xildhibaan inoo generate garee
waayahay waan u mahadcelinaynaa macaamiilka ku guulaystay dabcan lambarkiisu waa 629 konton konton iyo kow afartan iyo kow mar labaad haddaan ugu celino daawadayaasha aan hoolka xaadirka ku ahayn fagaaraha beerta nabadda waa 09 konton konton iyo kow afartan iyo kow waayahay iminkana waxaa loo tartamayaa Samsung TV receiverkeedii anteenadeeda oo iswata xitaa qofka waa loo xirayaa shirkadda u xiraysa wax koosi lagama qaadayo waa free installation okay waayahay xildhibaanka aad iyo aad u mahadsan yahay macaamiilka ku guulaystay TV-ga iyo receiverka iyo anteenada oo wada jira lambarkiisu waa 625 79 57 46 hambalyaan leenahay waa 625 79 57 46 mar kale waxaan rabnaa inaan Janice u siino in loo tartamo mobilka aad ku quruxda badan Samsung mobilka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaal waa shirkadda Samtel ee kula soo xiriirayso gaar ahaan barnaamijkii loogu talagalay macaamiisha in lagu abaalmariyo ku shub guuleyso waxaana ka mid tahay macaamiisha ku guuleystay hadiyada marka magacaaga saddexan iyo meesha joogto محمد أحمد علي intee joogtaa walaal intee joogtaa بلوي bulxube ayaa joogtaa hambaliyo dhala Samsung iyo receiverkeeda ku guuleysatay insha Allah hambaliyo walaal مركز هاوي نجيب هاوي ولا ليتني هاوي shirkadda ayaa kala soo xiriira xafiiska noogu imaanay walaal insha Allah ku abaal marinayna haduu ilaa yiraahdo waayahay hambalyaan leenahay xildhibaan inoo generate garay macaamiilka u tartamaya iminka mobilka Samsung mobilka xildhibaanka inta aan ka soo saarayna reer koonfur galbeed waa inoo generate gareynaysaa soo dhawo ma kan hadda ay afkiisa garanayo ma waayahay xildhibaanka aad iyo aad u mahadsan yahay waa kaftan un yaana loo qaban insha allahu tacaala macaamiilka ku guulaystay mobilka lambarkiisu waa 628 772 waa 872 iminkana waxaa loo tartamayaa laptop waa markii labaad waxaan u rajaynaynaa arday buugga graduation buugga qoraya insha allahu tacaala inuu ku guulaysto bulshada dadka ugu baahida qaba ayaan guddoonsiinaynaa hadiyadahan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته shirkadda Samtel ayaa toos kula soo xiriiraysa walaal gaar ahaan barnaamijka ku shub oo guuleyso waxaana ka mid tahay macaamiisha guuleystay marka magacaaga saddexan iyo meesha joogto حسين علي محمد نمبر فرنجوه lambar 4 joogta hambaliyo waxaad ku guuleysatay mobile Samsung waa ku hambalyeynayna walaal marka la wadaag macaamiisha asxaabtaada haduu ilaa yiraahdo هذا يبقى معاري قونا mobile ku guuleysatay insha Allah xafiiska kugu dhow ee Samtel tag insha Allah waa lagu amal marinaa walaal ايوه اوكي hambalyaan ku leenahay maasha Allah nasiib wacan macaamiilka ku guulaystay laptopkana lambarkiisu waa 588 eber hal waxaan rajaynayaa Axmed inuu si toos ula xiriiro waa 588 eber hal waan ka sii faa'iideysanaynaa xildhibaan iminkana waxaa loo bartamayaa mobile Samsung mobile waayahay macaamiilka ku guulaystay lambarkiisu mobileka waa 625 xildhibaan dareenkaaga ka waran ilaa iyo 7 macaamiil ku dhawaad ayaa guulaysatay 2 laptop gaadiidkii bajaajka aad aragtay maasha Allah nooc ugu qaalisan ee magaalada laga isticmaalo casaanka dadweynaha ee xiiseeyaan mobilada bal maxaa kuu baxay sidaad ka dhawaajisay ninka reer bulxubayna reer koonfur galbeed u ahaa inta hadlaysa baa arkaayo kulley hadalka waa garmaajinayaan kulli raxweynay ahaayeen waa ku mahadsantiin horta waxa waaye waa barnaamij cusub oo Soomaali dhan u fiican waaye waxa la rabaa shirkadaha kalena inay ku daydaan waaye runtii waa ku shubo ku guuleyso waa mashruuc cusub oo runtii dan yarta ka faa'iideysan karta waaye waana arin aad iyo aad u muhiimsan waaye insha Allah haddii aan soo noqdo waxaan rajaynayaa maxaa la lahay meel fiican inaan qabto waxaan rabaa abaalmarinta markaasaan ka dhigaa waxa waaye Samtel iyo Dahabshiil runtii haddii loo fiiriyo shirkadaha kale waxa waaye markaad internetka isticmaalaysid waa shirkadda kaliya oo runtii
isbiidkeeduna uu fiican yahay qiimaheeduna uu aad u jaban yahay haddii loo fiiriyo kuwa kale waxa waaye taas waxa waaye mid aniga aan sababta ani aan u qaatay familkeena 15 sim card saas waaye marka waa shirkad runtii shacabka u roon dahabshiilna 2 jeer jaamacadda waxaan ugu qaaday maxaa la lahay lacag deen ah waqtigii lagu talagalay waa dhiibay ardaydan ku bixinay haddana waxaan diyaar u ahay inaan bulshada taageero waxa waaye dadka kaliya macaamiisha la leeyahay waaye waan idin soo duceynaynaa insha Allah aad iyo aad oo mahadsantahay xildhibaan hay naga tegin macaamiishii toddobaadkii hore guuleysatay ayaan rabnaa inaan abaalmarino qaarkood weliba inaad gacantaada ku abaalmariso hadiyadda aad guddoonsiinayso oo aad marag u noqotaa rajaynayaa inuu taagnaaw waxaan soo dhaweynayaa madaxa waaxda ganacsiga shirkadda mudane cabdulaahi cali caamir soo dhawow mudane waayahay sidoo kale waxaan u yeerayaa madaxa xafiiska suuqgeynta mudane axmed ciise xaaji soo dhawow boos waxaan gudagalaynaa macaamiisha la abaalmarinayo waayahay sidoo kale waxaan u yeerayaa walaalkay ducaale maxamed xasan oo ka tirsan xafiiska corporate-ka soo dhawow ducaale sidoo kale waxaan u yeerayaa walaalkay mahad cosobow soo dhawow maamule stage-ka imow waxaan rabnaa macaamiishii toddobaadkii hore guuleysatay inaan abaalmarino iyadoo inala joogo xildhibaankeena qaaliga ah mudane idriis cabdi dhagta waayahay sidoo kale walaalaha waaxda howlfulinta waxaan ka codsanayaa inay stage ka yimaadaan si ay hadiyadaha bixintooda inoogu fududeeyaan soo dhawaadaan leeyahay shirwac soo dhawaada insha allahu tacaala si aad inoogu fududeysaan walaalayaal waayahay guulaystaha ugu horeeyaan ka bilaabeynaa waa daahir maxamed maxamuud oo ku guulaystay gaadiidka bajaajka mid ka mid a 2 bajaajka ah ee casaanka la guddoonsiin doonaa daahir soo dhawow wana nagala soo qayb galay munaasabadda hoolka ayuu nagula sugan yahay ama fagaarahan beerta nabadda aan ku qabanayno munaasabadda daahir soo dhawow wiilkan aad ku daadayar maasha Allah hambalyaan leenahay soo dhawow saaxiib nasiibkaagu wanaagsan yahay maasha Allah wuxuu gacan qaadayaa xildhibaankeena mudane cabdulaahi cali caamir madaxa waaxda ganacsiga iyo mas'uuliyiinta kale ay noo taagan walaalkay cusubow iyo mudane ducaale waayahay xusni cali xasan ayaan u yeeraynaa oo ka mid a guulaystayaasha toddobaadkan waayahay cooking machine ayuu ku guulaystay cooking machine maasha Allah soo dhawaan leenahay شريف حسن محمد أيانو يرينا وياه كوكين مشينا يكوكل السيس نسولو علينا ولكن شريف هذا مقلة ستيج كيمو أول صعبين عندي رجلين يقول استاج جبريل إبراهيم عويل أيانو يرينا وياهي جبريل إبراهيم أيانو يرينا وحكو قولستي 10 جرام وذهب هذونا مقلة وحنا لا ياهي استيج كيما ولا جبريل ما شاء الله جبريل وينو يمتسونو علينا ساحب ومع ميشينا شرفت له ولي بوا داير تسيدا قاركا واستعمال هذه جن إنترنت كان بلي الله يا ساحب وياهي هدية وجوه رئيس وحن جعلنا هاي إنه ينوجد دوسيو حلبان كينا حلبان إدريس عبدي دكتا وأنا جديد كبجاتك وحنو يريا معاملك كقولستي وحن لنا هاي سودو ولا لها مقال دوبياشا يا هوشو دي وتا ما شاء الله ويا همبليان لنا هاي وأقام هاد علينا يا هذا يودو على عدينا يا فرحتك كم وقتوات أركتان إن شاء الله سودو بلدرين كاغا كوران ما فيلانيسين إناد كوغوليسان يسو جديد كبجاج كايسون تلكوغو تلاقش والله ما فيلاني هنا كوغوليسان لكن معنا صدر نصيب كذا عاوي ما هو ما لنا شركة سمتل يوم حالها مسؤولين تيدا وحان كلام ما حد ليا محل هالمان كماش نقول سوون وحان يرجلي وديرها محل لنيرة أو
isticmaalo Somtel qof kastaba way u furan tahay qof kasta nasiibkiisa caawinayo marka waxaan ku dhiirigelinayaa inay dhamaantood soo xirmaan macaamiisha shirkadda Somtel aad u mahadsantiin ما شاء الله aad aad oo mahadsan tahay waan jeclaa su'aalo kale inaan ku weydiiyo laakiin waqtigan ka faa'iideysanaynaa waxaan jeclahay xusni in isna insha Allah la abaalmariyo cooking machine-ka in si toos ah loo guddoonsiiyo insha Allah ta'ala waxaan rajaynayaa inaan waayahay waxaa inoo guddoonsiin doona insha Allah ta'ala xildhibaankeena soo dhawaan leenahay waayahay walaalkeen xusni maasha Allah nasiibkiisa aad u wanaagsan yahay waa ku shuban $10 10 senti $1 $2 hadba itaalkaaga maaliyadeed inta uu leeyahay oo ku guuleyso 10,000 hadiyadood cooking machine ayaad ku guuleysan kartaa dahab ayaad ku guuleysan kartaa bajaaj maasha Allah aad ugu faraxsan yahay xildhibaankeena ayaa guddoonsiinaya maasha Allah hadda wixii ka dambeeya dhuxul malashida insha Allah xusni hawsha waa dhagdhag weey waayahay waayahay cooking machine-ka ayaan sii raacinaynaa qofka kale xiga Shariif Xasan walaalkan Shariif oo soo dhawow maasha Allah waa Shariif sida ka muuqata soo dhawaan leenaa walaalkan maasha Allah nasiibkiisa aad u hagaagsan yahay cooking machine-ka aan ugu talagalnay ayaan ku abaalmarinaynaa maasha Allah hambal ayaan leeyahay waa korontada xitaa uu beeqaaminayaa tayadiisa aad aan uga taxadarnay maasha Allah Somtel waa hooyada isgaarsiinta dalka simikaarka Somtel sido waa wehelkaaga uga shubay dahab xidig hal eber hal afar gees ama ku shubay scratch kaarka la xoqdo sidoo kale waxaad uga shuban kartaa adeega dahab reseller sidoo kale adeega isilodna waad uga shuban kartaa waxaan diyaar u nahay inaan ku abaalmarino mar walbana xildhibaanada mas'uuliyiinta ugu sareysa ayaa inoo imaanaysa shirkadda iyo bulshada qaybaheeda kale si ay ku abaalmariyaan waayahay 10 garaan ee dahabka ayaan jecel lahay inaan abaalmarin ahaan u bixino macaamiilka ku guuleystay waxaan rajaynayaa walaalkeen waayahay in Ibrahim Cali waxaan leeyahay halka inoo waayahay mudanayaashu way inoo soo laabteen si toos ayaan halkan ugu abaalmarinaynaa waayahay waad aragtaan waa 10 garaan oo dahab ah xildhibaanka rajaynayaa inuu si toos ah ugu wareejiyo insha Allah ta'ala iyadoo uu ku wehelinayo madaxa waaxda ganacsiga mudane Cabdullaahi Cali Caamir ما شاء الله حلوة إدريس ما أنتم حلي علينا هي مدافع صفية محمد عبدي أيان ويرينا أو كم إذا بقوليستياشا لكن إنك عودك الذهب كقوليستي أنت أنا ويجتك الذهب كم كان أركو جرعة كعيس صدو وياهي بلدرين كاجا كورن رجال أيها سميسك وشواشو أدو إنترنت كاج استعماله يا مكو هذا الكي سمتل مكو أبال مريسي تمن كان جرال مفلانيسي بسم الله الرحمن الرحيم آدم وفرح سنة هاي هديدا شركة سمتل جودون سيسي waxaan filanayay ma ahan laakiin alxamdulillah aadan ugu faraxsanahay waaya su'aasha had iyo jeer dadka dahabka ku guuleysta aan weydiinayaa yaad u sii hadiyadeynaysaa inkastoo la yiraahdo hadiyadaha lama sii hadiyadeeyo laakiin yaad siin lahayd yaa ku habboon dahabka aadka u quruxda badan maasha Allah aniga family aan leenahay alxamdulillah xaas ay joogo iyo haruur ay joogto marka waxaan jeclaan lahaa xaaskii inaan ku hadiyeeyo waayahay aad iyo aad u mahadsan yahay dareen qiiro leh ayaa ka muuqday walaalkeen inuu ilmeeye ayuu ku sigtay waan ka qabtay mikrofoonka mooye maasha Allah dumaashideen waxaan leenahay hadiyadaasi kal iyo laab ayuu kugu soo qaaday Somtelna way idinku abaalmarisay qoys hagaagsan ayaa idin rajaynaynaa waayahay xilligii salaada ayaa la soo gaaray waa xilligii lama dhaafaanka waan soo xiranaynaa munaasabadeennana aadka u quruxda badan waan hambalyeynayaa dhammaan mas'uuliyiinta kala gedisan waxaan jecelahay inuu inoo soo xiro Ustaad Axmed Ciise waayahay yarkaas ku guuleystay dahabka xaaskiisa sida qiiraha leh ku macnaha ugu hadiyeeyay waliba si xamaamasad leh Jibriil Ibrahim Cali asiya xaaskiisa waxaan ugu dareynaa hadiyo kale oo internet 2 bilood internet bilaa ah oo lacag la'aan insha Allah asiya xaaskiisa insha Allah waa maasanyiin waayahay Ustaad Axmed ay noo soo xiray laakiin intaana soo xiran waxaan rabaa xildhibaanka iyo Ustaad Axmed iyo Ustaad Cabdullaahi Cali Caamir bajaajta agteeda inay ii tagaan saaxiibadeen muuqaal duubayaasha waxaan rajaynayaa halkaas inaan u wada jeeysano guuleystihii bajaajka ayaan u yeerayaa fadlan halkaa imow
waayahay halkaa inuu tagaa rajaynaya si toosa si loo abaalmariyo guulaystayaasha kalena fursadaan siinayna insha allah aan abaalmarino walaalkeen maasha allah madaxdii shirkadda uu ugu sareeya mudane cabdulaahi cali caamir iyo mudane axmed ciise xaaji madaxa xafiiska suuqgeynta xildhibaan idriis cabdi dhagta oo matalaya mas-uuliyiinta dowladda ayaa si toos ugu wareejinaya waad aragtaan saaxiibadeen muuqaal duubayaasha ayaa si toos ugu wada jeestay waan bogaadinayaa telefishinada tabinta tooska sameynaya بسم الله waxaan ku wareejinay bajaajtii maalinta usbuucii hore lagu guulaystay wiilkan dhalinyarada ah oo hadda istaagaya mootadii su-aasha aan weydiinayna waxay tahay mootada ma isagaa wadan doona mise cid kale u dhiibi doonaa mootada anaa wadanaa insha allah ما شاء الله آدي هذا يوم سين هاي نكاس غليرة ده ما أنت وحنا قعدتي سكوري جني بجاج $4 لعكتي يكونوا ده هاي وحنا رجالنا إن شاء الله نخويس كاس ونغضب خويس نورل في عنواي ماشي تبغى مرتب ما وفور ويل كان ولي بواسطة لا يشاقي أرض جامعة دمية واي وحيوتها قابور بالله في عنا الله بركة يا الله نهاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waayahay أنا بشاشة إن شاء الله دولة رادو سانت الله وأنا بعد إننا مع الله شركة سكتة كوب سنة كأنا جعلت بيني مدي شغال كلامي إنه فاهمين إذا موتما تقول بوليس dan masih bisa bisa اوكي واي ما سنتي لو كاسا بخيرنا ان شاء الله وما سنتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته waayahay waayahay aad iyo aad u mahadsan yahay mudane axmed ciise xaaji waxaynu isla soo gaarnay gunti iyo gabagabadii barnaamijkeenan tabinta tooska ah waxaan u mahad celinayaa warbaahinta tabinta tooska samaynaysay astaan t v dalsan t v muqdisho cable t v shabeelle t v goobjoog t v rtn t v 5 t v radio kulmiye radio mustaqbal iyo guud ahaan warbaahinta kale tan iyo kulanti dambe daawadayaal waxaan idinkaga tegaynaa nabadiino noole kulante amaana allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti dambe oo xiisan qushub wuxuu ku guulaysto waxaan ku guulaysta inaa ooyaa iga soo dhan mar dambe ima burinaysa bajaajaan ku guulaysta anaa ku dhahay dib dambe ima burinaysan ku dhahay dhagaan ku dhaga bajaaj lacagtaan kaalisa adigana haya farxadda ii sheeg anna waxaan ku guulaystay 10 garan oo dahaba shirkadda isgaarsiinta Samtel waxay kuu soo kordhisay ku shubo oo ku guulayso macmiil ku shubo kaarka hadalka ama internet Samtel si aad ugu guulaysato 10,000 oo hadiyadooda ay ka mid yihiin gawaaraha Hyundai cusub bajaaj lacag iyo hadiyado kale badan gacalisa waa ku salaam